wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Ugu horreyn waxay soo kormeereen goob loogu talagalay in lagu dayactiro kutubta Quraanka Kariimka oo laga hirgelinayo galbeedka magaalada Boorame. Dhismaha xaruntani oo ay gacanta ku hayso Jamciyadda Nuur Islaam Al-Khayriya taasi oo dhismihiisa dhowaan la bilaabay. Waxaana wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ku weelinayay socdaalkiisa maayirka magaalada Boorame isku-duwayaasha wasaaradaha diinta iyo howlaha guud iyo haldoor kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Jamaal Yuusuf Maxamed iyo Faadumo Saciid oo ah haweenka siyaasiyiinta ee Somaliland. goobtaan joognaa runtii waa goobtii loogu talagalay in laga dhiso xarunta kitaabka Quraanka Kariimka. markii hore waxay mareysay laga dhiso laakiin maanta laga dhisayo oo waxa bilaabmay marka insha Allah taala bilaabmayna dhismihii baa bilaabmay. khayraadka wanaagsan ee ay maxahay jimciyadan ay sameysay ay noo bilowday ka soo qayb gala waxa weyn kitaabkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo dayacan oo maxahaydin xashiishada laga soo ururinayo meel xun laga soo ururinayo oo la dayactirayo oo dub loo habeynayo dub loo hagaajiyo cid kasta oo codkayga maqlaysa oo baaqa maxahaydan maanta dirayno maqlaya inay maxahaydin jimciyadan wanaagsan ee khayrka wada inaad wixii aad ku soo deeqi karaysaan aad ku soo deeqdaan $1 hadaad ku soo deeqdaan waxa weeyaan iyaka waxtar bay u noqonaysaa. isku-duwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee gobolka Awdal iyo isku-duwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Awdal oo goobta ka hadlay ayaa waxay tilmaameen dhismaha loo fulin doono maxaa ku raadayeen dayactirka kitaabka Quraanka Kariimka ee ay hawshiisa wado Jamciyadda Nuur Islaam oo ay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeyntu ay siisay dhul laga dhiso maxaa ku raadayay xarunta dhisme. message-ka aan diraynaana waxa weeye dhismahaasi lacagta ku baxaysa maxaa ku raadayay Jamciyaddu waxay ka rabtaa dadweynaha aan inagu kow ka nahay inaan ka qayb qaadano ayaana loo baahan yahay hadii la yiraahdo wax wanaagsan ayaa halkan ka socda loo baahnaa mashruuc lagu intifaaco aakhiriya adduunyada cidii wax ka geysatana ay Ilaahay hortii waxaan ka helaysaa ajri weyn. maayirka magaalada Boorame Mudane Saleebaan Xasan Xadi iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa shacbiga ugu baaqay in laga wada qayb qaato dhismaha xaruntani. dhulka sababta aanu bixinay waa sida isku duwuhu sheegay in la kaydiyo oo la ilaaliyana waan ugu talagalnay dhulka danta guuda halkana waxaan ugu talagalnay in halkii kutubta lagu xafidi lahaa sida sheekhu noo waramayay يعني حسنات كأولية هي واجبات كأنك صارن إنه إلى أنك كتاب كإلهي ووح إنك وضع صارن وحن دماتين رجع دمر بيسوون نمي يمسؤولين بقى إنه ما أنت مرخاتك نقولنا أو دقح دقنا أو بلونه قبتي اللي قد يحتري لها كتاب كان القرآن الكريم هذا الكإلهي يجوبابه الجوبابين إنه مجتمعين ونكسن قيمها بدن رجع دمر واحد سوون نمي إنه الجوبابين إنه كسوق يبقى تضيع ترك كتاب القرآن كأركيسان سيدا ونقضي يسوق جو أي هاي واحد نقول بقى دمان قبل هذا يدعي هذا خروني أي حاجة شرين إنه كود أيضا مجال بورمة. عبد الرزاق عمر معدوليو تلفزيون كعدك بريق أفريقيا بورمة.